golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalmahan waxay lahayn fadhiyo furan oo laga doodayay xoogaal u noqoshada xaaladda guud ee dalka oo loo yeeray madaxda qaranka gaar ahaan wasiirada oo halkaas dabatan su'aal adag la weydiinayay doodan gaaban iyo inta mesela fadhiyadaasi ay soconayaan waxa aan ka qaadaya oo aan dhexdhigaya in xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo Cabdiraxmaan xoog la yiraahdo oo ka tirsan xildhibaanada mucaaridka gaar ahaan xisbiga mucaaridka wadani iyo xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka tirsan xildhibaanada muxaafidka in xisbiga talada haya ee kulmiye aan ku horeeyo Axmed Maxamed Diiriye Nacnac in doodan in furane maalmahan bay aad mas'uuliyiintii aad wax weydiinaysaan in maxay daarantay bismillaahir rahmaanir rahiim waxay daarantahay aad badan mahadsantahay waxay daarantahay waxa qabadkii kulmiye ama xukuumadda nimanka jirtay inaanu dadka u bandhigno oo ay noqon wax transparency noqoto oo wax la qariyaan noqon oo qof waliba arko qof waliba ka jawaabo wasiiradu markay noo yimaadeen ay ka jawaabaan taasaan ummadda tusayna inaan wax qabanay insha Allah waxna qaban doono Cabdiraxmaan bismillaahir rahmaanir rahiim de xisb golaha wakiiladu kulmiye ma aha mana aha waaxda istaraatiijiyada iyo dacaayadda ee kulmiye waxa ay daaran tahay waan ku diidanahay in wax qabadka kulmiye dadka la tuso ma aha sida uu xildhibaanku sheegay waxa weeye waxa laga hadlayay oo aan hoosta isaga xirnay 3 maalmood arrimo dadweynaha aanu ka wakiilka nahay ee uu dastuurku nasiinayo inaanu wakiilka ka nahay waxyaalaha ay ka cabanayaan ee ay had iyo jeer imika arrimaha taagan current affairs ayaanu hoosta isaga xirnay waanu tan laakiin taas waanu sheegnay laakiin in fadhiyadan imika furan ee dadku dhageysanayaan ee wasiiradii la weydiinayay in su'aalaha xasaasiga la weydiinayo waxa wasiiradii waxaan dadka wixii anagu aanu isku boorinay aanu war habacsanaan baa golihii gashay aynu shaqadeennii gudano xilkeena sida waqtigu uu nasiinayo hawlaha iyaga inaanu gudano oo wasiirada iyo xukuumadda la xisaabtano anagu dadweynaha ka wakiilnahay dadweynahana waxa wasiiraduna waxay ka wakiil yihiin madaxweynaha xildhibaan Nacnac wakiilada golaha wakiiladu ka mid yahay ee dadku doortay ee madaxweynaha soo wakiil kama aha sidoo uu hadlayo waxa ka wakiil ah dadweynaha wakiilada la doortay waxaanu ka hadlaynaa arrimaha shidaalka waxaanu ka hadlaynaa arrimaha nabadgelyada waxaanu ka hadlaynaa arrimaha biyaha waa wax dadku ka cabanayaan dadku waxay qarka u taageen inay mudaharaad ballaaran ay ka dhigaan biyaha magaalada waa lagu haraadiyay xildhibaan Nacnacna magaalada naga wada doortay Hargeysa magaalada Hargeysa naga wada doortay inuu dadweynaha u hadlo way wax qabadka uu sheegaya dadka haraad bay u baqtiiro labadayada xaafadood ee waliba anaga aanu deganahay aniga isagu foostada biyi waxay maraysaa 10,000 oo shilinka Soomaaliland xildhibaan Aansi Axmed Maxamed Diiriye Nacnac hortay in marka xukuumadda la sheegay xukuumaddu xisbiga ka soo baxday taa weyn waa daafacay kulmiyanahay oo xaq baan u leeyahay daafaco oo aan xaq wixii ay qabatay sheego ta kale waqtiisa laba xildhibaan baan nahay dadkan ka wakiilnahay biyo la'aan magaalada way jirtay imikana waa kii wasiirku noo yimi waa kii aanu su'aalo weydiin wasiirka biyaha waliba mudane ayaan Cabdiraxmaan xoogo ayaan aad iyo aad ugu bogaadinaya oo su'aasha weydiiyay uu noo sheegay in oo helitaangiyaasha labada qoon la saarayo oo biyo la soo bamgareynayo hawshina socotay ilaa 20 milyan oo doolar la gelinayo marka waxa weeye Cabdiraxmaan de hore waynu suugaynay inta beeba ku inta noo imanayaan wadun bay naga xigay insha Allah bidmillaah kariini aynu ku ducaysano weena ka wax tangible oo la taaban karo weeyaan aynu sugna baan leenahay taas waa tibiyaha tii wax qabadkii kale ama wadooyin ha noqoto ama ha noqoto wasaaraddu la hagaajiyay de waxaan ku faani karo xisbigeygii aan oran jiray aan gudoomiye oo la ka hadlin wax xasan ni qabanayna wixii ay qabteen waa ii farxad oo maalin walba waxay qaba markii waxa soo saaraan waa farxad baan u farxaa waxa ugu dambeysay maanta weeyay 10,000 ee askari sarkaal la siiyay darajada ee lacagtii loo kordhiyay intan imika la dismo inta kale 3 milyan oo doolar baa lagu daray marka waa wax qabad hadda arrimahaasi oo dhan waa xoogaal u noqoshada xaaladda dhabta ah ee dalka tii aan hoos iska xilina deelaha booga waxaan ku wada hadlaynaa taas furan baynu ku hadlanay imika Cabdiraxmaan haye bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha ololaha kulmiye ee gobolka Hargeysa Mr Nacnac wuxuu ku ololeyn jiray udub way tagaysaa ha tahriibin walaal codkaaga ku xilbax dadku codkooda way ku xilbaxeen been baa ugu ballan qaadeen wax alla waxa kordhisay ma jirto way si labalaab tahriibti xaafadaha iyaga xaafadaha ka wakiilkana inay yar oo 17 jir ma joogo dadkii way tageen badaha liqay waxay farta ku fiiqi jireen laamida ka jawaab Nacnac arinta waa lagu soo qaaday shalay markii su'aalaha wasiirada la weydiinayay taa waa lagu soo qaaday laakiin waxa weeyaan waa wax iska jir waa qariisa jirta
5,000 iyo shalay wasiirku wuxuu noo sheegay wasiir nooyib wuxuu noo sheegay 5,010 inan oo jaamacadeen ila shaqeeyay wax kale ka fara badan wadankeen ma ictiraafin dhaqaalihiina way ogtiin waa yabyabsanayna hadeen wixiiba aynu marna aynu wasaaradda ku dhisno marna shaqaale tii kama marnin laakiin waa qirsada bariga aniga Cabdiraxmaan ma anaki barigan eejkayga waa anaki tahriibnay laakiin anagu shaqo doomaan hay waxay tagtay Saudi Arabia anigu imaaraadkan u tagnay marka waa anaki imaaraadka ka soo shaqaysanay marka wax weyn waa intay tahriibtan waa qiisad waan oran jirnay walaalaha tahriibina laakiin insha Allah bismillaah karin baadkulka inay naga harsan tahay ayaan ceelashu bay noo soo baxaya waad arki doontaa qiiqiba dibadna waan urunayna waan urunayna qiiqiba noo arkayna marka waxweeyaan ayaa waan loo soo tariibi doonaa insha Allah bismillaah karim shidaalka uu leeyahay waa soo uraya waxa weeye waxay noqonaysaa kers ama habaar buu ku noqonayaa si u socoto sababtoo ah waxa weeye imika waa la isku haystaa waxa loo kala baxay laba qeydood baa loo kala baxay dadkii deganaa marka damaanad isagoon sharci u sameyn buu leeyahay badrool baan qodaya horta shuruuc baa loo sameeyaa dadka kala qabata oo kala hagta sharci qoran lama horkeenin waxa la hor keenay oo heshiis ma jiro waxaanu anagoo dadka ka wakiila oo dastuurka noo sidayo dawladda qarjajicis bay ku wadaa badroolka way iska qodaysaa dadkii foosay isu gelinaysaa nabadgelyo quraanu iibin jirnay caalamka iibin jirnay nabadgelyadii ayuu shidaalkan uu sheegaya baabi'inaya labada burcu iska horkeenay imika way soo socotay anigu banka tuyaan ka wakiilahay banka tuuyo ee u dhaxeeya ood weyne iyo muxuu ay salaxle inta dhulka u dhaxeeya aan ka wakiilkahay waxba leegama weydiin anagoo wakiilkiya waxaad xilli banacna sayr baarlamaanka loo keeno shuruucda waa la Kenya way noo taala heshiisda waa la Kenya laakiin hadaynu kuna xildhibaanadii oo tahriibtiinaynu ka adgeynaysaa dadka xumaanta inaynu horseegin waa baadholkiba ulaaya wana ka bahariigi la keenay waa ka blocks kala qaybiyay waa dadkaynu ku wacdino oo aynu sheegno inay wax soo socdaan laakiin hadaynu hano aniga lama soo wargelin ani wad gumura markay imika waa laga qodaya lama soo wargelin laakiin waan ku taaniyay waxaan leeyahay walaal noo qoda oo noo dhaqsada ma leeyahay waxa weeyaan in lagu soo wargeliyo waxa weeyaan in baarlamaanka kan waxa markaan leeyahay aniga lama soo wargelin kiligay maaha golaha wakiiladan ka tirsanay nin kasta constituency buu leeyahay constituency-gaaga oo aan waxba laga weydiin waa ku ayaan daro nacnacow inaad ku faanto constituency-gayga wax kastoo ka dhacay waa la ogeysiya qarankana waxa ka dhacay waa in loo keenaa heshiisyo haddaan loo keenin inay sun ku aasayaan yaa ka wayaayay in Cabdiraxmaan masalan taa ini waxa weeyaan waxa waan maqlaayay maalmaha ma xillimaana la hasuma lagu aasiya in waqal sun lagu aasmay waa baasuurka blocks-kiiba annagu kale baan sii deyn blocks-kiiba jira waxaan imaaraadka tagnaa Cabdiraxmaan marban waa tagnaa in imaaraadka iyadoo leeyihiin khayr waajib buu jirin iyagoo baasroolkii dubo meel walba ka baxayo markaasna yaa Abu Khalifa maxaa oran jirtay barigi hore caruurteeda inuu iibin jirnay bay dhahay maantana waa ka arkaysa marka walaal waxa sabir jamiil baan leeyahay sabrku waa uu wanaagsan yahay aynu sabir marka shirarkiinan masalan kuwa hoosta iska xidhateen iyo kuwa imika ilaa shalay iyo aad su'aalaha obinka furan la weydiinayo wasiirada iyo madaxda dawladda wala ballan qaaday Soomaha in shuruucdii iyo wixii heshiisyadii la keeno wala sandulle shuruuc laan ku soconayso shuruucdu way noo taala waanu haysanaa waynu naasixinaa marka naasixinana wax weyn waa la soo saaraya marka shuruucdu waxa weeyaan waa xaq weeyaan waa xaq waxa shuruuc laana la ka yeelinba laakiin waxa weeyaan durbaba dadka ay naga dadinayeen alaabti waa la keenay sirfeegi baa la qaadaya waa shuruucdan imika basgaraynaaye wayna keenay aan dardargelno in baarlamaanka aynu dardargelno aynu shuruucdaas taasi qaar kale badan oo faa'iido labayn sugaya aynu aad iyo aad Cabdiraxmaan waxyaabo kale lagu soo qaaday waxa kamid ah masalan shalay oo kale waan joogay su'aalihii wasiirka la weydiinayay xagga nabadgelyada oo kale oo adiguna su'aal adag weydiisay taa maxaad ka oranaysaa waxa weeye dadweynuhuna soo doortay anagu dadweynuhu baanu ka tuujinaa dadweynuhu waxay ka cabanayaan niman afka xiran oo inay cadaan yihiin inay madow yihiin wax la waxay yihiin aan la gelino habeenkii soo daadanaya caruur badan baa imika taroomadii iyo waalidii argagixisada ay ku sameeyeen iyaga wax la argagixisada la dagaalamina dadkii bay argagax gelinayaan saqda wuxuu soo dhacaya nin labada indhood oo waa booliiskan gaarka booliiskan araariyo leeyahay wasiirka arrimaha gudaha waanu imika waa la ansixinaya haddana isaga la wareysanaya wasiirka si gaar ah uga hadlaynaa inkastoo oo wasiir noo yimi shalayto wax badan ka hadlay haddana waxa weeyaan haddaanu dadweynaha ka wakiilahay ma ogolin habkaa lagu wado haddii dadka aariyuda colaad loo geliyo imika waxay u arkaan ciidankoodii
haddii dadka colaad loo geliyo dowlad dimuqraadi bay nahay nabadgelyadu waa wanaagsantay argagixisa ma jirto ninkan aariyugi meeshu taga waa meel wax lagu ogaaday oo la soo ogaaday oo satellite ku qabtay ayaa qofka argagixisa loo arkaa marka qof walba oo ku asmeeyna qabsadaan dadku waa ku saxaafada marka ninka qabsanayaan waxa weeyaan waa nin la soo satellite ku qabtay marka kaasuna isaga argagixisada waa in iyagoo madaxa duuban ayuu taga wax kale ma dilayaan marka waxa loo diiday qofka inuu qofku karto inuu qofkaas hebel yahay oo dadkeen waa qabaayil iyo waxaan kaas isku yimaadaan inaan qofku garan qofka qabtay ee wax kale ma dilna maayo si fiican bay u keenaan markay baadhayaan lacagtooda iyo waa shil wasiirka noo sheegay lacagtooda jawaaskaato baasrool waxooda halkaas ayay u taalaa sidii loo soo qaada laakiin qofku bay soo kaxayaan ama saqdaxa qabteen ama habeennimaha qabteen ama subaxa qabteen qofku bay keenaan police keenaan wax ay kale ku sameeyeen ma jirto arrinka kuma raacsan xildhibaanka qof argagixiso la tusiyo baa la qabtaa buu leeyahay dadka inta badan ee la qabto inta la hayo dhowr week ayaa la sii daayaa warma nimanka qabtay 20 sanadood nin dugsiga universal ku lahaa Hargeysa oo 20 sanadood wax ka dhigay ma nimanka ninka qabtay ee yiri waxaan moodanay Ibrahim Afqani ee marka yani waxa weeye boqol anigu waan xoogaalsanahay xildhibaanka waxa weeyaan ama 20 sano macal hada ama 30 sano macal hada nimankan adduunka waale waa nimankan garka la baxay ee ilaha alqaacidi wax sheegta marka waa laga yaabaa in lagu tumay adduunku ceema hadii lagu tumay waa tira soo daayida laakiin hadii ninka lagu tumay ahmadow ninkaas waa argagixis nacnacbaan xoog moodayay jawaab noqon mayso waa macquul laba taasoo kaga baxnaa maxaa xal ah markaasi basalan maxaad filaysan in fadhiyadiinan masalan furan ee dadku aad uga soo qayb galayaan su'aalaha adaga la isweydiinay laftooda waa caafimaad maxaad filaysan oo ka soo baxaysaa Cabdiraxmaan Xoog waxa weeyaan anigu hortu waajibaadkayga dastuuriga baan gudanayna wasiirada waajibaad dastuuriga una inaan la xisaabtano wasiirada iyo xildhibaanadan taageera ee aad moodo inay ka tirsan yihiin xukuumadda waa inay daayaan jikaarka iyo isdifaaca faraha badan leh waa inay wixii aanu ku adadagnahayna ay yidhahdeen ilma adeer sidaa maaha walaalayaal sidaa maaha ay qaboojiya wixii kalena waa inay ka garaabaan waxaanu ka filaynaa wasiiradu inay garaabaan oo waxyaalaha dadweynuhu anaga noo xil saartay in mas'uulka uga nahay inay ka noqdaan wali talaabada guryaha loo soo daadanayo burxay ka dhacday Hargeysa ka dhacday meel walba ka dhacday marka la qabto baraaleho ninkan ku moodayay xaalad nacnac maxaa filaysaa ka soo baxayaan fadhiyadiina waxa ka soo baxayaan laba waxba ka soo baxaya mid weeyaan de wax xal oo baarlamaankeena xooggal u noqon wax xukuumaddu qabatay ta kale waxa xooggal u noqonay ummadda u noqonaysa waxa xukuumaddu qabatay oo la xisaabtanay oo wixiina lagu soo doortay sharciyadina lagu soo doortay aanu filno labadaas oo ka soo baxayaan xukuumaddu iyo xildhibaanada taageera ee leh maxay qabatay towradu nimankan leh waxa weeye waxaan leeyahay xukuumadda qotay raadin towradu waxa xukuumaddu waxay qabatay anigu xildhibaan baanay xisbigayga ka soo baxay kulmiyaan ka soo baxay kulmiye waan ku faanay markuu waxa wanaagsan ummaddu qabto waan ku faanay kulmiye farta wuxuu ku fiiqi jiray laami burburay laamigii Hargeysa ee ila afdilo hortiisa magaalada Hargeysa laga soo gaar muraayada aha daadkii baa gooyay laamiyada dhamay googooyin biyaha laba arrimood bay faraha ku fiiqi jireen saddex arrimood tahriibta biyaha iyo wadooyinka intii way burbursay wax loo xaqatay Axmed waa gabagab waxaan malaynayaa laamiyaasha tan imika madaxtooyada horumarta ilaa ka gaarisa ila gaarisa iyo madaarka malaaxa Cabdiraxmaan Muarey waad mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin doodaasi xiisaha leh waxay dhex martay labada xildhibaan Cabdiraxmaan Awxoog oo ka tirsan mucaaridka iyo xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye labaduna golaha wakiilada ay ka tirsan yihiin oo fadhiyo laha maalmahan furan oo مسؤولية الدولة سؤال الويديني